bini'aadanka waxa uu isku dayay in uu wax ka ogaado cirka xidigaha meerayaasha. sidaa darteed waxay 17 dowladood isku waafaqeen in la sameeyo saldhig ka wada dhexeeya. saldhigani ujeedada ugu weyn waa in hawada sare laga helo macluumaad in la soo ogaado in uu bini'aadan ku noolaan karo hawada sare iyo in wax lagu beeri karo. saldhigani dhulka waxa uu jiraa masaafo dhan 400,000 oo kiiloomitir. sida caadiga ah saldhigani ma ahan sida saldhigyada oo kale, waa saldhig hareeraha adduunka saacadii jaraya 27,000 oo kiiloomitir. maantay muuqaalkan waxaan ku arki doonaa siday u nool yihiin dadka ku nool saldhigani. Space Station waa mashruuca ugu qaalisanaa ee bini'aadan abid uu sameeyo. Stationkan kama duwano astronomiyada hawada loo tuuro, waxa kaliya uga duwan yahay waa inuu bini'aadan ku nool yahay. dadkan astronautka cunada ay cunaan waxaa looga keenaa adduunka. astronaut walba markuu dhulka ka tagayo waxaa soo dhaweeya astronautiyada kale ee halkaasi ku nool. nolosha saldhigani way ka duwan tahay midda caadiga ah ee dhulka ka jirta maadaama ay gravitation uusan lahayn isbeyska sare. wax waliba way ka duwan yihiin siday u shaqayn jireen, xitaa suuliga qofka uu galayo. dadka astronautka ah waxaa ku adag sida adduunka oo kale inay dhaqaan timahooda. waxay isticmaalaan shaabooyin qaas ah iyo biyo aad u yar. nolosha dhulka waxaa kaalin weyn ka geysta cufad isjiididka, maadaama cufad isjiididka uu suurtageliyo in wax kastoo dunidani yaala uu soo jiidan karo. waxaa suuragala in waxyaalo aad u badan ay soo jiitaan gravitationka dhulka. dadka astronautka markay doonayaan inay ilkaha cadaystaan waxay ku qasban yihiin inay isticmaalaan warqad, maadaama wax kastoo ay tufaan ayay ku soo laabanayaan. astronaut walba intuusan adduunka ka tegin waxa uu sheegaa cunooyinka uu jecel yahay, iyaga oo baakadeed ku jira ayaa adduunka looga diraa. cunooyinkaas baakadeedka ku jira waa kuwo aad u adag si aysan u gelin hawo. dadka astronautka waxay u baahan yihiin inay hurdaan. siday u hurdaan wuxuu stationku leeyahay qolal u qaasa, maadaama cufad isjiididka uusan ka jirin halkaasi. hababka ay u hurdaan waxaa ka mid ah in uu qofku isku soo xiro qol sidii sanduuq oo kale ah, wuxuuna leeyahay dhar ku dheggan maadaama aysan u baahnayn iyagoo hurdaya in ay dulduulaan. waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa ka mid ah inuu qofku aysan suurtagal ahayn inuu sida caadiga ah u socdo. qofka hadduusan dhaqdhaqaaqin, lafaha qofka waxaa soo gaara dhibaatooyin caafimaad. si looga hortago waxaa loo sameeyey meelal u qaasa ay ku samayn karaan jimicsi. markay ay samaynayaan jimicsi waxay isku xiraan meel si aysan u dulduulin. qofka ugu dheer ee ku noolaaday stationkan waxaa la sheegaa inuu yahay ninkan hortiina ka muuqda. 1 sano oo kaliya ayuu ku noolaa, waxaana la sheegay inuu dhirirkiisa ku darsantay 3 sentimitir. dadka ku nool saldhigani waxaa dhici karta in ay ku xanuunsadaan maadaama ay samayn wax dhaqdhaqaaq ah, waxayna ku qasban yihiin inay meel waliba si aada u nadiifiyaan. dadkani waxa ay qashinka ku aruuriyeen meelo qaas ah, waxaa dib loogu soo celiyaa dhulka. waxaa kaloo cajiiba maadaama uu stationkani ku socdo saacadiiba 27,000 oo kiiloomitir. waxay arkaan
dadka astarnoodka qorraxda oo dhacaysa 15 jeer maalintii. dadka muslimiinta oo halkaasi ka shaqeeya waxa ay tukadaan 45 daqiiqo halkii salaad, maadaama ay qorraxdu u dhacdo 15 jeer. dadkan waxaa dhacda inay marmar bannaanka u baxaan si ay wax u kala bedeshaan astrooniyada kale. qofka astronoodka waxaa halis weyn ku ah in uu baxo maadaama satellaydyada adduunka ay dhex wareegayaan hawada sare. si kastoo daciif u tahay inuu satellite ku dhaco stationka, balse qofka waxay u tahay halis weyn.